Sida dad badan ay ka warqabaan, meelo badan oo gudaha Soomaaliya ka mid ah waxaa ka furan xarumo dhaqan celin ah, kuwaas oo intooda badan la geeyo caruuraha laga kaxeeyay dibadaha, kuwaas oo waalidiintu ay doonayaan in dhaqankii iyo diinta halkaasi lagu soo baro. Haddaba xarumahan oo ayagu xilligan u muuqdo kuwa qaab ganacsi ahaan loo furay, waxaa ka dhaca tacadiyo aad u fara badan oo maskaxdaadu ay diideyso. Waxaa jira qaarkood gabdhaha halkaasi la geeyo in la sheegay in la kufsado. Waxaa jira jirdilo loo geysto iyo duruufo looga faa'iideysto maadaama carruurtu aanay oggolayn marnaba in ay halkaasi ku noolaadaan. Waxaa dhacdo in dadka ka shaqeeya halkaasi ay u sameeyaan ballanqaadyo ah in ay sii dayn doonaan haddii ay waxa ay doonaan u sameeyaan, taasoo iyaduna caqabad kale ah oo waalidiintu aanay hore uga sii fikirin ugana baaraandegin. Xabsiga caanka ah ee loo yaqaan Godka Jilcow ee ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa gabar 17 jir ah hooyadeed dhaqan celin ahaan u geysay. Waa xabsiga Jilcow oo asagu ah meel lagu xiro dadka dambiilayaasha ah, halkaas oo ciqaab adag maxaabiista loogu geysto. Haddaba daawade, arrintan waxa ay ka dhacday mar aan fogeyn sanadkii tagay gudihiisa magaalada Muqdisho. Haddaba qisadan oo ahayd qiso argagax iyo layaab leh, waxa ay ku xasuusinaysaa amaba ku dareensiinaysaa mararka qaar waalidiinta marka ay qurbaha ku dhibtoodaan, isla markaana ay wax ay sameeyaan garan waayaan in ay ku kacaan falal aan caqiibadooda dambe laga fikirin, amaba waxa ka dhalan kara amaba waxa ka imaan kara aan laga sii baaraandegin. Ka waran hooyo ama aabe adigoo isla carruurtaada tarbiyaday, haddii aad af libaax gacanta u geliso maxaa ka dhalan kara? Haddaba dhacdadan argagaxa leh ee gabadhaasi Soomaaliyeed ee hooyadeed xabsiga Jilcow dhaqan celin ahaan ay halkaasi ugu xirtay, waxaa goobjoog ahaa oo ka sheekeeyay nin lagu magacaabo Cabdulaahi oo ka mid ahaa dadka maxaabiista ee qaab siyaasadeed ugu xirnaa xabsiga Jilcow xilligii falkaasi argagaxa leh ee naxdinta leh gabadhaasi lagu sameynayay. Waxa uu ka qayb qaadanayay barnaamijka Ha Noolaato oo uu marti ugu ahaa wariye Ayaanle Xuseen Cabdi. Waxa uuna si tafaasiil buuxda leh uga warramay dhacdadii gabadhaasi halkaasi ay kala kulantay iyo waxa uu asagu inaan ka tagaan u malaynayaa hooyadeed baa dhaqan celin u keentay. Waa gabar almost waa 17 years. Dadkan waliba waxaan u malaynay xabsiga markii la keenay xataa dad qaraabadeeda saraakiil ka mid ah meesha ka shaqeynaya. saa darteed waxaa loo keenay meesha inay labada qoleen ku sheegayay ciidanka lagu xiro qolka soke yaa lagu xiray gabadhaas. sababta loo keenay iyo wax laga faa'iiday farq weyn u dhaxeeya. ay maxay gabadhaasi hooyadeed way dhibtay way kadeeday sidii la sheegay, macnaha nimanka meesha maxaabiista mas'uulka ah baan weydiisay gabadhan ma dambi bay gashay, waa yar tahay, waa ilmo yar almost 17 years. ma dambi ma galinay dadkooda soo xirtay waa la kari waayay waa la soo xirtay. Godka Jilcow xogaa waa lagu yar cabsi geliyaa dadka. gabadhi ma gasho maamada niman qaraabadeeda meesha mas'uulka ah, gabadhi waa la soo xiray meeshu afar bariya ku xidhneedo waa isbedelaan nimankan xabsiga haysta waa la bedelaa maalinba waa la bedelaa. waxay u barteen gabdhaha ama shabaab ha lagu soo xiro waxooda in xuquuqdooda lagu ciyaaraa meesha loo bartay. cid ka daba tagaysa nin walba wuxuu ilaalinayaa gabadhi la soo xiro waa fursaday u arkaan fursaday ka faa'iideysanayaan. haddii madaxda ay arkaan xataa in khalad xalay uu dhacay wax nin walba wuxuu qarinayaa waxay dambiyada la qariyay ka mid tahay. Godka Jilcow waa gabar lagu kufsaday ama gabar wax lagu yahay la yeelay, waa arrin khatar weey, waa caalamku bomboonini. gabadhi marka dhaqan celin loo keenay nimana yimid habeenkii waa la baxeen isla meesha dhexda matoorka dhexdeeda lagu qabsaday gabadhii. ragga qaarkood qeyladu ay maqlayeen anuu meel geesan ku jiray qol oo kadeeda oo nafaad ku jiray. laba maalin kadib hooyadeed timid arrintii waa sheekaysay duqdii baa banaanka cilada ay ku barooratay halkaas la qabtay ayda gabadheedii banaanka loo saaray loo tuuray. waxaan islahaa maamadaas way hadli doontaa gabadheedii oo waxay tagtay dhaawacan iyadana geysay markaa ayadana gacanteeda ku geysay. waxay kala ma Jilcow dad lagu dhaqan celiyaa waa lagu cadaabay maya de waa gabadhan dad bay raacday mar bay ka yara fakatay say sheegtay marka waxay tiri hal igu dhaqan celiyo. waxaa soo dhan waxaa ka sii daran aaminaada ay siisay waxa kamid ah leeyahay saraakiil kamid ah iyo ayada qaraabadeeda meesha. marka waaba loo fudeediyo waxa la yiri qolka u soo oo la xirin ha lagu xiro sijaayad ha loo dhax dhiga saaman buu u fadhinay qofka mana ka bixi karo. hadii niman bahalo oo waligood ba anaag arkino habeenka dhan qayilay yaa la soo bedelay. qofkana dhaqan celin loo keenay kana shaab ma kala yaqaanaan ba horeen baa laga qabsanay gabadhi
maamadii ayadoo shallaytoonayso iyo meesha ka baxday macnaha waxyaalaha dhacay oo goobjoog ahaan u ahaa bay ka mid tahay si ugu fakartay inay jilaco loogu dhaqan celiyo gabadheeda wallaahi ma garanayo kolley waxaan u malayn meelo badan baa gabadha haddaba wixii meeshaasi ka dhacay waxa ay ahaayeen wax aad iyo aad runtii u argagaxle waayo hooyada Soomaaliyeed ee ku fikirtay gabadheeda xabsiga jilcow in ay dhaqan celin ahaan ugu xirto waxay ahayd hooyo aan fikirin hooyo aan ka fiirsan cawaaqibta ka imaan karto waayo xabsiga jilcow waxa uu ka mid yahay amaba uu ahaa xabsiyada ugu ciqaabta adag uguna dhibaatada badan maxaabiista lagu xiro tan iyo xilligii dowladii militariga xitaa dadka xabsiga jilcow markay maqlaan argagax iyo naxdin ayay ka qaadi jireen haddii aad ka waran wiil iska daayay gabadhaada aad ku aamintay inaad kusoo dhaqan celin xagee taallaa dhibaateyn ayaad cunugaaga geysay waxaa intaasi dheer waalidiinta ku nool qurbaha sida gaar ahaan Yurub iyo America ama meelo badan oo wadamadan westernka wax la yaab oo laga yaqiiqsooda ah in waalidiinta caruurtooda inay inta qaadaan halkaasi geeyaan ay leeyihiin waa la soo dhaqan celinayaa waa la soo tarbiyadeynayaa ayagana kasoo laabanaya sidee caruurtaada aad ugu aaminaysaa dad aadan aqoon waxa ay yihiin dad dhaqankooda aadan aqoon sidee ugu aaminto dad aad isleedahay way tarbiyadeyn karaan adiga dhalayba haddii aadan rabin inaad tarbiyadeyso maxaa adiga kaa soo waday maxaa ula joogi weyse la laaba haddii aad rabtid in caruurtaada aad soo bartid diinta islaamka waa wax fiican adiga qaado go home qaado sanad 2 sano la soo joog kadib la soo laabo cunugaaga maxaa ugu aaminaysaa qof aadan aqoonin oo katiinada lugaha looga xirxiraya sida qof dambiile ah maxaad ka filanaysaa cunuga bartaas ka soo baxo berito in uu la soo baxo ma cunug akhlaaq ahaan fiican ma cunug maskax ahaan caafimaad qaba oo fit ah maya cunuga katiinadaha lagu xiray maskax ahaan marnaba ma noqonayo mid fit ah waxaad ula dhaqantay sidii qof dambiile ah oo criminal ah oo dhibaato geystay kaba sii daran waad ka soo tagtay waxa loo geystay cunugaaga kufsiya ka dhaca halkaasi kufsiga ka dhacay adiga ayaa raalli ka ahaa adiga ayaa u bareeray khatarta noocaasa inay caruurtaada lagu sameeyo oo aad halkaas uga soo tagtay hooy iyo aabe muhiimaddu ma ahan in aad maxay ahayd caruurta tarbiyadeysaan waa tarbiyadeyn kartaa meel walba aad joogtood ku tarbiyadeyn kartaa waad wadi kartaa ilmahaaga adiga guri ka ijaaro ama guri haddaad ku leedahay Soomaaliya ama Afrika la noolaaw macallin dugsi u keenso guriga dhexdiisa quraanka kugu bara halkaas la soo joog 2 sano 3 sano hase yeeshee ha sameynin falalka guracan ee ah in aad aaminto xarumo ganacsi ahaan loo furtay haddaba waxaan filayaa muuqaalkan inuu hooyooyin badan tarbiyad u noqon doono